dhinaca kale tan mid ka mid ah xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ee ku nool ismaamulka Kajiado waa koonfurta dalka ayaa waxaa soo gaaray khasaare malaayiin shilin ah kadib markii 14 neef oo geel ah oo baabuur taraag ah kaga laayay ama ku laayayba wadada weyn ee Namanga. shilkan ayaa dhacay habeennimadii xalay iyadoo geela uu markii hore ahaa baadi. wiil ka tirsan qoyska xoolaha lahaa ayaa sheegay in geela oo shalay abaar 4 galabnimo ka soo lumay halkii lagu hayay xalayna 9 fiidnimo lagu arkay wadada weyn ee Namanga. sidoo kale tiro geel ah ayaa ku dhaawacmay shilkaasi halka qaar kaleetana la sheegay in ay lumeen. dadka deegaanka ayaa aroornimadii hore ee saaka bilaabay in hilibkaasi geela ay kala dhacaan. darawalkii baabuurka iyo dadkii la socdayba ayaa goobta ka baxsaday iyaga oo ka cararay baabuurka. waa kan Cabdi Nuur oo ah mid ka mid ah xubnihii geela lahaa oo warbaahinta u warmay. Ndio mwenye hiyo ngamia ambayo alipata ajali last night hapo. So ngamia ilikufia hapo kwa karibu 20. Alikuwa 20 imepotea imetoka kwa poma imepotea jioni saa 10. Alafu wakafika hapo saa 3 saa 2 na nusu vitu kama hizo, wakafika kwa barabara wakakutana kwa gari wakagonga karibu wakaumiza 14 ameua hapo kwa barabara. Si kutujafurahia, lakini pole kwa wale wenye wamepoteza ngamia zao, na kweli kuna watu wamefurahia leo pia, maana kama ilikuwa sherehe kwa bahati yao. Tulipata mshtuko kubwa sana, gari ameua ngamia 14 mara moja. Sijui dereva alikuwa anaangalia wapi. Accident inaweza kutokea, lakini sasa hii imekuwa too much. Ni kama hii dereva hajakuwa na makini kuendesha gari sawa sawa, kwa sababu ngamia 14 kukufa ni hasara kubwa sana.